ninka ku xiran dalka Itoobiya waa Bashiir Maqtal oo qaatay dhalashada dalka Canada sanadkii 1994. Bashiir waxaa la qabtay bishii December ee 2006 waxaana laga qabtay sohdinta u dhaxaysa Kenya iyo Soomaaliya isagoo doonayay inuu Kenya u gudbo. xilligaas Bashiir waxa uu ka soo cararay magaalada Muqdisho oo ay markaas ku soo qulqulayeen taangiyada ciidamada Itoobiya. isaga iyo tobaneeyo kale oo haysta dhalashooyinka dalal reer galbeed ah ayaa dawladda Kenya oo sida la sheegay kaashanaysa sirdoonka Itoobiya iyo Mareykanka u gudbisay dalka Itoobiya halkaas oo uu Bashiir ku xirnaa tan iyo waagaas. inkastoo la sii daayay inta badan dadkii lala qabtay, Bashiir ayaa muddo 18 bilood ah ku xiran dalka Itoobiya isagoo aan si rasmi ah wax dambi ah loogu soo oogin. horaantii toddobaadkan ayay safaaradda Itoobiya ay ku leedahay caasimadda dalka Canada ee Ottawa ka soo saartay hadal kooban oo ay ku sheegtay in Bashiir lagu soo oogay dambi ah inuu ka tirsan yahay urur argagixiso ah. ururka ay safaaraddu sheegayso waa jabhadda ONLF ee ka dagaalanta gobolka Soomaalida ee dalka Itoobiya. dowladaha Canada, Mareykanka iyo Midowga Yurub uma aqoonsana ONLF inay argagixiso tahay. Bashiir waa 37 jir, dalka Kenya ayuu ku guursaday 3 bilood ka hor intii aan la qaban. wax caruurana ma lahan. isaga iyo qoyskiisaba waxay qirsan yihiin in inkastoo uusan ka tirsanayn dagaalyahanada ONLF haddana uu taageersan yahay qadiyadooda, sida uu ii xaqiijiyey in adeerkiis Siciid Maqtal oo iminka degan dalka Canada. sidii isagu qoraalkiisuna ku sheegay wuxuu yiri inuu member ka ahaa markii uu joogo North America iyadoo ay laakiin xagga xuquuqda bini'aadanimada. Siciid ayaa sheegay inuu Bashiir ahaa nin ka ganacsada dharka dhowrkii sano ee la soo dhaafay, wuxuuna intaas raaciyay inuu Muqdisho tagay xilligii ay maxkamadaha islaamku ka arriminayeen. inkastoo uu Siciid ku adkaysanayo inuu Bashiir halkaas ganacsi uun u tagay, haddana dowladda Itoobiya ayaa sheegaysa inuu Bashiir tolayay xiriir ay sheegeen inuu ka dhaxeeyo ONLF iyo ururka Al-Shabaab ee uu Mareykanku liiska argagixisada ku daray. shakiga Itoobiya waxaa sii kordhiyay abtirsiga iyo halka uu ka soo jeedo Bashiir. awowihiis Garaad Maqtal Daahir waxa uu ka mid ahaa aasaasiyaashii ururka ONLF. Bashiir ruuxiisana waxa uu ku dhashay gobolka Soomaalida ee dalka Itoobiya, inkastoo uu ku soo barbaaray dalka Soomaaliya. si kasta oo ay ahaatase, dadka u dooda xuquuqda aadanaha iyo qoyska Bashiir ayaa qaba inay gaboodfal ahayd in Bashiir markii horeba loo dhiibo dalka Itoobiya. Paul Dewar waa mudane ka tirsan baarlamaanka dalka Canada. tallaabada Bashiir la isaga gooshiyay Kenya iyo Itoobiya waxa uu ku sifeeyay masaafurin sharci darro ah. The problem of course is for me is that the Canadian government hasn't been able to dhibaatada aan arrintan ku qabo waxay tahay in dowladda Canada ay ku guul daraysatay inuu Bashiir Maqtal uu helo adeeg xagga qunsuliyadda ah ama xitaa mid xagga sharciga ah maadaama hadda dambi lagu soo oogay. Mr. Dewal ayaa ii sheegay inuu aad uga xun yahay in 85 qof oo kale oo Bashiir lala xiray oo haystay dhalashooyin reer galbeed ah ay u soo gurmadeen safaaradahooda lagana saaray xabsiyada Itoobiya. It's clearly an embarrassment for Canada. Mr. Dewal waxa uu yiri waxa iska cad inay arrintani waji gabax ku tahay dalka Canada. caadi ahaan markii qof haysta dhalashada dalka Canada lagu xiro dal kale, sida dhawaan ku dhacday haweeney la yiraahdo Brenda Martin, dowladda Canada waxay isku taxallujisaa in qofkaas uu muddada xabsigiisa ku qaato dalka Canada. Siciid Maqtal oo ay inaadeer yihiin Bashiir iyo xildhibaan Paul Dewar ayaa rumaysan in dowladda Canada aanay Bashiir ugu hagar bixin sidii ay haweeneydaas ugu dadaashay. dowladda Canada hadday si bareera u doonaysay inay wax u qabato iyagoo lama mar arkay bay haddana saas u tahay Kenya qarsadeen. What they're engaged in is selective citizenship. waxa meesha ka socda waa muwaadiniintii oo la kala takoorayo. Bashiir waa Canadian, waxay ahayd inuu helo xuquuqda uu leeyahay qof walba oo dhalashadaas haysta, laakiin waa la dayacay. He's been abandoned essentially. walaaca ugu weyn ee haysta qoyska Bashiir iyo qaar ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Canada oo xagaagan tagi doona Addis Ababa si ay arrintan ugala hadlaan Itoobiya ayaa ah in Itoobiya ay ku jirto liiska Mareykanka ee dalalka ugu xun xagga xuquuqda aadanaha. mana ahan markii ugu horeysay ee ruux u dhashay Canada lagu hayo dal wax jirdila. dowladda Canada ayaa raaligelin iyo magdhow ka badan $10 milyan siisay nin la yiraahdo Maahir Carar oo ay Mareykanka iyo Canada iska kaashadeen in lagu xiro dalka uu asal ahaan ka soo jeedo ee Syria. si aysan taasi u dhicin mar kale, xildhibaan Paul Dewar ayaa ii sheegay inuu ka shaqeynayo sidii ay dowladdiisu u cadaadin lahayd dowladda Itoobiya iyadoo isticmaalaysa kaalmada dhaqaale ee ay Canada siiso Itoobiya sanad walba oo gaaraysa $100 milyan. Cabdiraxmaan Caynte, BBC, Washington.